dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si adag u cambaaraysay weerar lagu qaaday gudaha dalka Sacuudiga. Dowladda federaalka Soomaaliya oo war-saxaafadeed soo saartay ayaa si adag u cambaaraysay weerar la sheegay in loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo lagu bartilmaameedsaday goobo muhiim ah oo ku yaala gudaha boqortooyada Sacuudi Carabiya. War-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in diyaaradahaasi la qabtay kadib markii ay galeen hawada Sacuudiga, iyadoo dowladda Soomaaliya falkaasi ku tilmaamtay mid halis ku ah amniga iyo xasiloonida gobolka. Soomaaliya ayaa sidoo kale muujisay taageerada ay la garab taagan tahay Sacuudiga, waxayna sheegtay in ay taageersan tahay tillaabooyinka lagu ilaalinayo amniga iyo badqabka boqortooyada Sacuudi Carabiya. Dhanka kale, bayaankan ayaa lagu xusay in weerarada lagu bartilmaameedsado dalalka iyo kaabayaasha muhiimka ay sii kordhin karaan xiisadda gobolka Bariga Dhexe oo mar hore wajahaysay xaalado amni iyo mid siyaasadeed oo adag. ugu dambeyn, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku baaqday isxakamayn, ixtiraamka sharciga caalamiga ah iyo xoojinta dadaalada lagu ilaalinayo nabadda iyo xasiloonida gobolka. Marka laga yimaado in dowladda federaalka Soomaaliya ay si adag u cambaaraysay dhinaca kalena ay ka hortimid gudaha weerarada lagu qaaday dalka Sacuudi Carabiya, haddana weeraro dhowr oo horey lagu qaaday gudaha dalka Imaaraadka Carabta iyo dalal kale oo khaliijka ah ayay dowladda Soomaaliya ka gaabsatay xilligii ay taagnayd xiisadii Bariga Dhexe, gaar ahaan dagaalka u dhexeeya dowladaha Mareykanka iyo Israa'iil oo isku dhafayo Iran. Arrintan ayay dadka ka faalooda arrimaha siyaasadda ku tilmaameen in dowladda Soomaaliya ay macno ahaan u adeegsatay war-saxaafadeed ka soo baxay maanta in ay la jaal tahay, dhinaca kalena la garab tahay, aadna uga xun tahay wax kasta oo ka dhaca gudaha dalka Sacuudiga, sidoo kalena aysan wax jixaan jixa u haynin dalka Imaaraadka Carabta.